السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرس سومالي وإذا السلام يا ميك استشوف تابع. وحنا كدد بدنو كحنا أقسم فيديو بيجي صوت وبي هبه إن شاء الله يتو. أولا قبيلة باكو قادتي. قبيلة دكو قادتي قبيلة ما قادنا قرن ما قادتي. لكن قرن كسر ضوء أركتان وقوم أركو. تذكر سومالي لان. شعب كرير سومالي لان. waxaan leeyahay cid kasta oo wadankiina dhib ku haysa ama ha ku soo duusho ama ay macnaha dhex joogtay cid kasta oo qarankiina dhib ku haysa waa ina meel uga soo wada jeedaan tooshkana ku ifisaan kooxda maanta aan shalayta ka hadlayay waxa lagu sheegay suti gaashaan ee sunta ah reer Soomaaliland ku dhex jirta dadka u hadlaya aniga igu le qabyaalad baad ka hadlaysay ninka dadka ka maxaan ku dhahday ay ku sheegaan maxaan ku gudoomiyahooda ay ku sheegan waa nin garxajisa waa nin ciida gala ah waa nin in adeerkay marna dumaashigaya marka qabyaalada xaqaad ka soo fuushay iyo xaqaad ka keentay idinka la idin weydiin doona markan hadla waxa leedin adeerka aniga muusana adeerkay buu ahaa maantana yahay markuu madaxweyne ahaan adeerkay buu ahaa maantana waa adeerkay cirana waa adeerkay shalay markii aanu maxaan ku dhahay madaxweyne ahayn ee dhaliilayna adeerkay buu ahaa maanta oo madaxweyne yahayna waa adeerkay laakiin ma kala dooranayo labadooda ficilkooda kala dooranaya iyo qaranka siday u difaacaan iyo siday ummadda reer Soomaaliland iyo shacabka reer Soomaaliland ay isugu hayaan ayaan kala dooranaya kala dooran maayo macni ciro iyo muuse kala dooran maayo ficilkooda ayaan kala dooranaya labaduba waa adeeraday marka ummadda waxaan leeyahay group kasta oo isku daya dadkiina iyo dalkiina inuu burburiyo oo ummadiina isku diro waa inaad toosh ku qabataan waa inaad ka warhaysaan maxaan ku idhahday ninkaas iyo waxa suti gaashaan la yiraahdo iyo YouTube layda hoos tagta ee afkooda ku hadasho oo dhan waa inaad tooshka daba sidaan xumaantoodana aad soo gudbisaan iyo dhibaatada ay qaranka iyo ummadda la daba socdaan marka waxa way midnimada ummadda bariga Soomaaliland degan muhiim weeye qarankay u muhiim tahay habar jecel iyo habar yoonis bari midnimadoodu waa muhiim weeye difaaca qarankay muhiim u tahay Soomaaliland oo dhan bay muhiim u tahay qofka inta garan la ee isku dirkooda iyo iska horkeemidooda ka dhex shaqeynaya macni anigu waxa lagu taageeri karo ma garanayo sababta loo taageeri karo ma garanayo waa intoo shil daba qaata dadka reeraha isku diraya ee markay laba reer heshiiyaan ka xumaanaya waa intoo shil lagu haya waa in la sheegaa abid anigoo laba reer shirkooda ka hadlaya ma arki kartid habar awal hadday shirto gidiga iyo maanta shaqadayda maaha habar yoonis hadday shirto shaqadayda maaha garxajis hadduu shiro shaqadayda maaha ilaa iyo inta aan arkayo inay wax dhib iyo lidi ku ah reer Soomaaliland iyo qaranka Soomaaliland ay wadwadaan laakiin dadkan ka hadlaya waa dad intay magaalooyinka la hadlaan markay reer shir ku qabsanayaan caruura ay boqol u dhiibeen yiraahdo ordo taga oo soo duuba waxay ka hadlayaan iyo waxay ka shirayaan abidka reer Soomaaliland oo reer kala xamanay hadalkiisa kama hadal haddaan arko meel habar yoonis lagu caayo waan ka dhaqaajiyaa haddaan arko meel ciida gal lagu caayo waan ka dhaqaajiyaa haddaan arko meel habar lagu caayo waan ka dhaqaajiyaa laakiin dadka aad doonaysaan inaad difaacdaan waa dad ummadda reer Soomaaliland isu basaaso kala basaaska waxa looga baahan yahay furimaha looga baahan yahay Soomaaliland dhexdeeda iyo shacabka reer Soomaaliland iyo reeraha reer Soomaaliland isu basaaso oo kala basaaso looma baahna midnimada ummadda bariga Soomaaliland degan waa qasab weeye qaranka ayay muhiim u tahay habar jeclo iyo habar yoonis inay ahaadaan mid difaaca wada galaan waa muhiim waanay ku tusaan inay muhiim tahay shalay taayado qaranku qiranteed ku jiro ayay midoobeenay wada shaqeeyeen way difaaceen maxaad uga xuntay markaa maxay uga xun yihiin ay colaada u dhex wadaan maxay tahay waxa bari laga raadinayaa iyo dadka bar degan la isku diro
maxay tahay faa'iidada habar ugu jirta maxaan ku dhahay Soomaaliland habar yoonis iyo habar jecel bari ay culoobaan anu gabadh habar yoonis baan laakiin gabadh reer galbeed baan dagaalka ka qarxa Sool iyo Sanaag goortan gaadha dheer oo dhible inanka habar yoonis ee reer bari walaalkii waa inanka maxaan ku dhahay habar jecel ka u soo gurman kare soo gaari kara markiiba waa inanka habar jecel galbeedka Soomaaliland garxajiska jooga waqtigay soo gaadhaan waa waqti dheer way ku qasbayn inay walaalo ahaadaan istifaacaan qarankooda difaacaan maalintii ay kala shakiyeen ee isaaq shakiga la dhex dhigay waa maalintii qaranka la qabsaday waa maalintii Faysal la qabsaday haddii aanay gudnimadii dhacday iyo isku dirkii reeraha iyo kala fogeyntii reeruhu aanay dhicin Faysal muu fadhiyeen halku fadhiyo maantana niman masaakiini noomay soo duubeen ha iska duminina burcaanaga haysana Faysale gudnimadii isaaq la dhex dhigay baa keentay tiibay kooxdaasi sii wadaa weli tiibay daba wadaan ummadda taa waa in laga hadlo waa inaan toosh daba sidno dawladdana waxaan leenahay dadka waa inaan la hadasha waa inaa aamuska joojisaan waa inaad marka shaki soo galo aad imadda wax u sheegtaan oo la hadashaan haddii kale kuwaasoo kale ayaa ka faa'iideysanaya oo ka dhex shaqaynaya oo warka xun u kala geynaya oo beenta faafinaya ka dawladda waxa laga rabaa laba wax baa laga rabaa kow dadka waa in ay wargeliso ay wax u sheegto ay la hadasho oo aanay ummadda ka fogaan laba ciidamada booliiska waa inay helaan qalab ay dhagaxa iskaga difaacaan oo marka ninka dhagaxa lagu tuuro inaanay xanuujino sida maanta dhacday guul darrada iyo nasiib darrada ay labada qof u dhinteen waa inaanay dhicin waa inay haystaan wax ay dhagaxa iskaga difaacaan mudaharaadyadu way dhici doonaan way dhacayaan gardariya iyo garba way dhici doonaan laakiin waa in laga feejignaado waa in loo diyaar garoobo waa in dawladdu qalab siiso ciidamada booliiska dawladda waxaan leenahay laba mid yeelo horta kow dadka markay wax shaki soo galo ummadda horkaanaya oo u sheega oo wixii dhacay u sheega laascaanood dhibtii ka dhacday wixii koobaad ee keenay wuxuu ahaa dawladdii hore aamuskeedii tanna yaan aamuskii oo kale loola imanin yaan aamuskii lagu wadin ummadda waa in wax loo sheegaa dad badan baa baraha bulshada ku jira dad xumaan wada baa baraha bulshada ku jira dadkaas warkoodu gaadhayaa dadka haddii warkiinu gaari waayo khayr iyo baraka isku ognahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu